السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida aan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doono waa qiso la yaab badan horena aadan u maqal. waa qisadii Cawj ibn Cunuq. kuma ayuu ahaa Cawj? meeqa sano ayuu noolaa? meeqa ayuu dhirirkiisa la ekaa? ma wuxuu gaaray nebi Nuux iyo nebi Muuse waqtigoodii? ma nebi aadan baa awow u ahaa? ugu dambayntiina sidee ayuu u dhintay? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheergareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Cawj ibn Cunuq waxaa la sheegaa inuu awowgii ahaa nebi aadan calayhi salaam, waxaana dhashay Cunuq bintu aadan. Cunuq qisadeeda horay baan ugu soo hadalnay daawadayaal. Cawj wuxuu ahaa nin aad iyo aad u xooggan. waxaa la sheegaa inuu dhirirkiisa ahaa 23,000 oo dhudhun, balliciisana uu ahaa 333 dhudhun. hadduu doono inuu wax cuno, nimiri dhan ayuu badda kala soo bixi jiray, wuxuuna nimiriga ku duban jiray qorraxda, kadibna wuu cuni jiray. hadduu doono inuu biyo cabo, wuxuu joojisan jiray daruuraha si uu biyo ugu cabo. wuxuu Cawj ahaa nin dhulka fasahaadiya, ku faana xooggiisa. Cawj waxaa la sheegaa inuu noolaa 3,000 oo sano, oo wuxuu soo gaaray xilligii nebi Nuux calayhi salaam. markii nebi Nuux la amray inuu doon sameeyo, wuxuu u baahday nebi Nuux calayhi salaam alwaax la odhan jiray saaj. alwaaxaasi aad ugu cuslaa, wuxuuna yiilay dhulka Shaam. nebi Nuux wuxuu waayey cid u soo qaada alwaaxaasi, waxaana la wariyaa inuu Cawj u soo qaaday. markii qooma Nuux uu Ilaahay halaagayey, Cawj wuxuu weyddiistay nebi Nuux inuu doonta la koro, wuxuuna nebi Nuux ugu jawaabay, naclad ha kugu dhacdee, la ima amrin in aan noocaadoo kale doonta saaro. balse Cawj sidaa kuma daynine, oo gadaal ayuu doontii kaga dhegay, wuxuuna noqday gaalka keliya ee ka badbaada duufaankii. Cawj ibn Cunuq wuxuu gaaray sidoo kale xilligii nebi Muuse calayhi salaam, oo wuxuu ka mid ahaa jabaabiradii haysatay baytulmaqdis. waxaana la sheegaa sababta ay u geli waayeen reer bani Israa'iil dhulkii barakaysanaa inay arkeen awoodda Cawj. Cawj wuxuu soo raacay jabaabiradii waaweyneed ee baytulmaqdis haysatay si ay ula dagaalamaan nebi Muuse calayhi salaam iyo qoomkiisa. wuxuuna Cawj soo qaatay dhagax aad iyo aad u weyn si uu ugu baabi'iyo nebi Muuse calayhi salaam iyo qoomkiisa. balse Ilaahay ayaa wuxuu u soo diray shimbir. shimbirkaasi wuxuu dalooliyey dhagaxii, wuxuuna dhagaxii ku dhacay madaxii Cawj, waxaana isgalay madaxiisii iyo qoortiisii, wuxuuna ku dhacay dhulka. isagoo weli aanan dhiman, nebi Muuse ayaa wuxuu jilibka kaga dhuftay ushiisii. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadii Cawj ibn Cunuq. Ilaahay ayaa og in ay run tahay iyo in kale, oo waxaa laga wariyey reer bani Israa'iil. culimmada muslimiintana waxaa wariyey imaamu Tabari iyo imaamu Qurtubi. Allahu aclam.